xubinta top 5 alaaba waxaynu ku bilownaa 5 ayaynu ka soo bilownaa hanaanka kala horeysiinta iyadoo beesha ugu caansan aynu u dabamarin doono kow aynu geyn doono 5 waa beel shanaad waa beel la isku keenay oo qabiilo kala duwan ka kooban ma ahan beel dhalasho wadaaga laakiin inkastoo Soomaali isla dhashay ay yihiin haddana waa beel la isugu keenay qabiilo fara badan oo sumcad iyo sharaf qaarkood ay ku leeyihiin geyiga Soomaaliya waxa ku jira qabiilo caan ah oo la yaqaano ha yeeshee beesha shanaad beeshee ayaa ugu caansan isla markiiba qof walba oo bini'aadana waxa ku soo dhacaya magaca beesha jareer weyne oo kamida magacyada geyiga Soomaalida aad looga yaqaano beesha jareer ayaana u caansan beelaha la isugu geeyay beesha shanaad waa beel kamida beelaha dega wabiga jiinkiisa waxayna qabaan golaha maguurtida halka golayaasha kale ee dhaqanka Soomaalidu ay qabaan gola guurti iyagu waa maguurto sida ay dhowr jeer oo hore sheegeen lambar 4 waxaynu ku soo qaadanaynaa beesha digil iyo milifle waa mid kamid ah qabiilada Soomaaliya sumcadda ku dhexle waa qabiil ballaaran oo dega koonfurta Soomaaliya waa qabiil caan ah laakiin qabiilo badan uu ka kooban yahay ayaa beeshaasi waxa uu sax ah in beeli ay ugu caansan tahay inaga oo aan ka hadlaynin hantida anaga oo aan ka hadlaynin awoodda iyo tirada magaca iyo waliba caanimada digil iyo milifle waxa uu caansan beesha Eelay waana beel kamida beelaha deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waa beel qof walba oo Soomaaliya magaceeda ay taqaano beesha Eelay ee ka tirsan digil iyo milifle lambar 3 beesha direed markii aad maqasho waxa kugu soo dhacaya beelo waaweyn oo Soomaali ah waxayna intooda badan degaan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha Soomaaliya waa inta badan beel Soomaaliya degta haddaba beesha direed qabiilada ay u kala baxdo yaa ugu caansan weeyay su'aasha aynu in badan rogrognay waxaana ugu dambeyntii noo soo baxday qolada xukunta Somaliland ee magaca Isaaq loogu yeero beesha Isaaq ayaana ugu caansan guud ahaan beesha direed oo kamida beelaha waaweyn ee Soomaalida ay aadka loo yaqaano isla markaana la ciseeyo lambar 2 waxaynu soo qaadanaynaa beesha daarood waa beel weyn waa beel kamida beelaha hanaanka awood qaybsiga Soomaaliya cududda xoogan ku leh waa beel la yaqaano isla markaana kamida beelaha ugu sumcadda iyo sharafta badan qabiilada Soomaalida waa qabiil weyn oo caan ah sida daraadeedna qabiilo iyo beelo kale ayay u kala baxaan cid walba waxay isweydiinaysaa waa beesha ugu caansan haddii aan xaqiiqda raadinay oo wax badan aynu odrasnana waxa inoo soo baxday inay tahay beesha maamusha Puntland waa beesha Majeerteen sida daraadeedna waa beel kamida beelaha ugu caansan daarood oo Majeerteenku magaciisa ayaaba ah magac caan ah oo sida daaroodka loo yaqaan oo kale loo yaqaano waana beel sharaf iyo sumcad ku leh geyiga Soomaalida sida daraadeed beesha Majeerteen ayaa ugu caansan beesha daarooda lambar 1 beesha Hawiye waa beel kamida beelaha waaweyn ee Soomaalida waa beesha inta badan u loolanta xilalka ugu sareeya dalka Soomaaliya waa beel dega gobollo fara badan oo Soomaaliya ah waxayna awood qaybsaan u leeyihiin dhowr maamul goboleed oo ka jira dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir beesha qudeeda ayaa beelo walaalo ah u sii kala baxda ha yeeshee beesha ugu caansan waa beesha inta badan sheegata gobolka Banaadir waa beesha Abgaal oo kamida beelaha ugu caansan Soomaalida isla markaana xilal sarsare oo kala duwan ka soo qabtay geyiga Soomaalida waa beel kamida beelaha sida weyn Soomaalidu ay u taqaano isla markaana ay ciseeyaan qabiilaadka kale waana beesha Abgaal oo ka tirsan beel weynta Hawiye qiimeyntaasi waa tii Xogsheer Meediye iyo saaxiibadood ay sameeyeen